wacan oo wanaagsan dhammaantiin mar kale iyo muuqaal kale oo cusub. Maantana waxaynu kaga hadlaynaa magacyada dumarka iyo macnahooda. Midka koowaad waxaynu ku bilaabaynaa cambaro. Cambaro macnihiisu waa min al-cambar, waxaa laga keenay asalkiisa magacaan min al-cambar. Cambar waxaa la yiraahdaa shay qaali ah oo ku jira uurka ama caloosha nibiriga. Inta badan waxaa laga helaa shaygan meelaha xeebaha ee badda u dhow. Marka cambaro min al-cambar shaygaas ayaa laga keenay. Dahabu waa min al-dhahab, dhahab ayaa laga keenay gabadhaas magaca loo bixiyay oo ah dahabu. Deeqo, deeqo ayaa loola jeedaa ama deeqo magacaasi بألف مائلة بدل الياء اختصارا. مجعان ومجع لسوق جابي أو ألف أيام ماشي لقى بحيي وحان لقوا بدلية أيضا سدا لو سميه إن لسوق جابي أسر كيسنوا وإن دقيق أيها إن دقيق إن دقيق وحان لولا جيدا قرح ذيدا أو بوحين يسوى إن ده جمالها يملأ العين. إن دقيق غاية oo ah quruxdeeda ayaa wuxuu buuxiyaa indhaha. Waa gabar qurxoon oo indhahu ay marna ka weecan karin. Sidaas ayaa loo yiri indha deeq. Marka waa la soo gaabiyay waxaa la yiri deeqo. Magaca kale waa qalanjo. Qalanjo waxaa laga wadaa ama waxa uu asalkiisu yahay undal fiili, maroodiga midka dhadiga ah ayaa la yiraahdaa qalanjo. Maroodiga midka dhadiga ah waxaa loo yaqaanaa qalanjo. marka gabar magaceedna ayaa laga dhigay qalanjo. macnahaasna waxaa waaye an-naacima midda jilicsan waaye. al-bidda gabadha jilicsan, jir ahaan u jilicsan ayaa la yiraahdaa. dhaatul jasad al-mumtali'a waa midda jirka buuxda leh, jirka isku shuban oo isku dhisan leh. balanced body waaye midda jirkeedu oo dheelitiran yahay ayaa loo yaqaanaa qalanjo. hodan waaye. المبارك على جوده مدة بركيسن. نعيمة ومدة نعمة هايستا أو دقالة هايستا. هذا مدة دقالة هايستا أيها اللي محولة هايستا. هوية التي يحجب جمالها جمال غيرها. هوية ومجا حوري وإمنك أدمودو إنو زوري ولكن دمر كوري اللي بحنجري هو معني سنو التي يحجب جمالها جمال غيرها ومدة قرح ذي ay qarinayso way quruxda dumarka kale. hibaaq waxa loo jeedaa nooc min az-zuhur, waa nooc kamida ubaxyada waliba midka udgoon waa nooc udgoon oo ubaxyada kamida waxa la yiraahdaa hibaaq. cibaado ama cibaado min al-cibaadati ayaa laga keenay oo ah cibaadada. aaminiina an takuna ka maryama waxaana loo iilay sida مريم أو كلا أو أم عيسى عليه السلام. وفي العبادة عبادة كفعنات أيضا معناها مجعاسي لو قد ضينا يا أيان ومجع دمر إمن كان مجعاسي آدب وفرنتي أجرا ونفر بدنيا. أيان معناه هو المحظوظة مدة نصيب كله. المحظوظة مدة نصيب كله. أيان أصلك مجعانو ونصيب أما عو أما هذا له ama doobir leh waa isku macno. waa qof nasiib leh ayaa ayaan la yiraahdaa ama nasiib. aragsan mid aragsan waaye oo fiira. alxasana waa midda wanaaga leh ama alxasanatu linadar waruya midda u fiican waaye aragtida iyo fiirinta mid u wanaagsan. aragsan mid in la arkaayo ay fiican tahay oo qofka waxa uu leeyahay gabadhaasi أنا أركسان ته معناه إذا محاوي أنا إنده بوحسي أركتي فيرنتي إذا أنا ونكسنها توا. روحه واي سبحان الله كان من لب العظم لفت روحي ذا أيا الله كان روحه من لب العظم لفت روحه كجرة مش أيا لقى سوقاتي أو لفت روحه كجراي إنه يعيش لف قيمة له. العزيزة واي مدة شرفت له. إيدل معناه هو الجمعاء مدة كل مسوى جيد بوحسو
midda dadka jamcisa ama kulmisa waa alkaamila midda isku dhammaystiran waa maano waa adhakiya waa maan waa maskaxda miirka waa mid maan leh waa fadhina mid dhug leh oo maskax leh ayaa la yidhahdaa maano maan ayaa laga keenay maskax quman waa aljadiira bikulli khayrin waa quman mid toosan waa mid quman mid toosan bikulli khayrin khayr oo idil ku toosan ayaa la yidhahdaa quman taliso almushiira waa midda wax tilmaanta almushiira waa midda wax tilmaanta waa saaxibatu ra'yi asadiid waa midda aragtida toosan leh mid aragtida fiican leh ayaa la yidhahdaa taliso saaxibatu ra'yi asadiid midda aragtida wanaagsan leh midda ilowdi waa midda aragtida fog leh oo toosan leh ayaa la yidhahdaa taliso filsan daat albashar alraqiiq waa midda basharka oo jilicsan leh ayaa la yidhahdaa faris doolo ama dhool waa daat lasnaa'i alxasan waa midda ilkaha wanaagsan leh dhool waxaa leedahay ilkaha kuwa sare labada ugu soo horeysa iyo labada hoose kuwa ugu soo horeeya ilkaha kuwa sare labada ugu soo horeysa iyo ilkaha kuwa hoose labada ugu soo horeysa ayaa waxaa loo yaqaanaa dhool marka daatul asnaain xasan waa midda ilkaha wanaagsan leh ayaa waxaa la yidhahdaa dhool filsan waa daatul mandar alxasan macnaheedu waa daatul mandar alxasan midda aragtida wanaagsan leh ama ajmalu jiiliha jiilkeeda dadka ay la nooshahay oo isku da-da yihiin isku filka yihiin gabdhaha kale ee isku filka yihiin isku waqtiga ama isku waayaha yihiin midda ugu fiican waa ugu quruxda badan ayaa laga wadaa filsan waad mahadsantihiin idinkuna wixii aad fikrad aragti qabtaan nala wadaaga wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh